وصلنا عدالة وها shaqeysa mar walba wasaaraddu iyada shaqada tan dayacday xilli xun ayaa noo sheegtay waa bishii afraad waa bishii imtixaan ku taagna wasaaradda waxaan faraynaa inay imtixaanka noo fasaxaan waadkeena waxay yihiin ardayda aan wax iska haysano laamigaas ka danyaro anaga saan macna wax u barno waxna u bixinayay xildhibaanada Puntland waxaan ku codsanaynaa inay wasiirka manaxaha nagu eegin wax noo qabtaan waxaan ahay ardayda fonfoorka oo sanadkan imtixaanka centralska u fariisanaysay annaga waxa weeye maanta halka waxaan u nimi annagoo arday iyo waalidiin isugu jirna hawl soo korortay waxaan ku jirnaa bili ugu dambeeyay oo imtixaanka aan u fariisan lahayn war baan lagu yiri waxaan leeyahay imtixaankii aan u fariisan lahayn oo wasaaradda oo finalka ugu dambeeyay gali maysaaneen waxa weeye annagoo dadaal soo bixinay oo 12 sano wax soo baranaynay dhowr iyo 10 sano wax soo baranaynay oo sanadkan 9 bilood oo xiriira wax soo baranaynay in maanta la ku dhaho imtixaankii bishii ugu dambeysay waliba usbuucii ugu dambeeyay imtixaanku la sugaayay oo aanu diyaar garownay oo waxa weeye sanadan aan soo jarmaadaynay oo waxa weeye koorsooyin badan iyo xagaayo badan aan wax soo baranaynay oo waqti badan oo waxbarasho badan aan dadaal nagu yarayn in maanta la ku dhaho imtixaankii gali maysaaneen waxa weeye wax suurtagal ma aha wax aqliga gali kara ma aha waxa weeye odayaasha u jeedaan baan nahay intaas oo sana wax soo baranaynay maanta waxa weeye mustaqbalkii iyo mirihii aan waxa weeye intaas oo dhan aan u soo tabcaynay baarmay inaan guranno waxa weeye intaan imtixaanka shahaadada waxa weeye gallo aan ka qaadano shahaadadayada waxa weeye jaamacadaha iyo waxa weeye shaqooyinka iyo meel walba aan waxa weeye waddankayga aan u xamaalno waxa weeye annaga dawlad wax naga bixinayn waalidkayga oo aragtaanin oo idin sheegay siday rafaadku noogu qabeen baa annaga wax naga bixinayay waxa weeye marka mudane wasiir iyo agaasimayaal waxaan ka codsanaynaa dawladda in waxa weeye imtixaanka noo fasaxo maadaama aan nahay arday intaas oo dhan waxay soo tabcaysay dadaal soo bixinaysay waxaan ugu jira qaarkay arday waxa weeye top 10 ka soo muuqanaysa Puntland oo kaalmo badan waxa weeye oo laga rajaynayo in imtixaan anigaas waxa weeye aad baa iskoolka aan dhigto aad baa lagu xisaabtamo waxaan top 10 ka ardayda lagu xisaabtamo waxa weeye waqti badan maamulayaashu dadaal baa lagu bixiyay xagaayaan koor soo qaatay waxa weeye arday dhisan oo waxa weeye bees ka dhisan baan ugu jira maanta waxaan nahay mustaqbalkii dadka waxa weeye la sugaayay oo dalka iyo dadka wax ka bedeli lahaa wasaaraddu iyada shaqada tan dayacday waxa weeye waxay ahayd wasaaraddu inay kormeerka samayso ardaygu markuu sideedaad ka soo baaso fowanka foontriga foontuga inay waxa weeye kormeerto oo ay ardayga ogaato xaaladiisa inuu arday soo booday laakiin hadda maanta arday fonfora inay qabsato oo tiraahdo waxa weeye fasal baa ka soo booday waxa weeye xaq uma laha waa dadaal ay lahayd oo ka gaabisay iyadana waxa weeye shaqadeedii ka gaabisay marka waxaan leeyahay maadaama bishii ugu dambeysay lagu jiro xataa haddii sagaalaad noo iman lahayd oo na dhihi lahaydeen waxba idinma hayno waxa weeye annaga waa qancinahayn laakiinse maanta lacagtii sawirka waana laka qaaday tii waxa weeye internetka shahaado bahalka waana laka qaaday idhikaarka oo waxa weeye 9 bilood oo fee aan oo $30 waana laka qaaday waxa weeye mood iyo nool wax nagu haray ma jiraanin dadaal naguma harin soo jeed waxa weeye indhow aan aragtaan si noo gureen waxaan ka codsanayaa xildhibaanada iyo waxa weeye wasaaradda waxbarashada iyo bulshada rayidka inay hadalkayga maqasho oo waxa weeye ay jawaabna soo siiso cad imtixaan baan waxa weeye anagu diyaar u nahay waa diyaar garownay hadda imtixaankii baan sugaynaa mustaqbalka inaan lagu ciyaarin imtixaanka inaan gallo oo nolol sidaayo nolol fasaxo baan codsanaynaa waxaan ka codsanayaa dawladda Puntland ugu horeeyo madaxweynuhu wasiirka waxbarashada agaasimayaasha iyo cid kasta oo waxa weeye mas'uuliyad ka saaran tahay dalakan iyo dadakan waxa cod soo diraya wasaaradda waxbarashada oo na tiri imtixaan gelimayay annagu sagaalaad ilaa hadda wax akhrinay waxaan diyaarinay qamiis walbana imtixaan gelinay hadda waxaan leeyahay macala sawirada inay qaadan mideen imtixaan gelimaysiin waxaan inay ma hayno fasaxantiin marka waxyaalahaas oo ma qalnayno doono sagaalaad ilaa hadda qamiis la gelinay oo dadaalnay maadaama walba diyaarinay buugtii wasaaradda macala soo gadanay markiina saan ugu dhaqmaano ardayda Puntland oo ardayda Soomaaliyeed wax walba qabanay saan ugu dhaqmo xaq uma lihin teed kale wasaaradda waxa ka codsanaa inay imtixaan noo sii deyso qamiis bis sagaalaad ilaa hadda imtixaan ma gelina warqad imtixaan baan la weydiiyaa waxa soo gadana soo daawacna wasaaradda lacag naga bixiso indana lacag naga bixiso ana warqad hadii loo baahdo maanta waxa la diyaarina waalidkay ma wacnaa maamada naga bixinaysa markii wasaaraddu waliga leen hal warqad naga bixin waxna nama tirin markii in dhahdo maanta imtixaankii ma gelisin ayagoo intaas oo lacag naga soo qaatay sidaasna xaq ma noqonayso markii madaxweyne Said Abdullahi Diin xagan firin cusub kugu soo marsiinay in imtixaankii noo sii deesid anoo badan kumanaan qof sii dhaafana oo ardaya
waxaa codsanaynaa inay wasaaraddu noo ogolaato imtixaanka mustaqbalkeennana aysan mugdi gelin waxaa higsanaynaa meelo qurqurux badan mustaqbal baa leenahay arday dhallinyar baa nahay soo kacasa aydan caruurtaa sanadka nagu sii dayn inay koolodhuuq nagu noqdaan oo dariiqyada noo galaan sanadka maanta xilli xun ayaa noo sheegteen waa bishii afraad waa bishii imtixaan ku taagnaa xilli wax la isu sheego maaha waa xilligii lacagtii la qaatay carruurtii dhikaadhkii gashay carruurtii maxay tahay wax walba qabatay nin mukeef ku jira oo raaxaysanaya inuuna yidhaahdo imtixaan ma gelayaan carruurtaas xaq maaha namana qabato annagoo muruqayaga lacagta kaga bixina carruurta oo aan dawladina taageerin oo aan maxay haytay cid kale oo wax naga bixisa aanay jirin waxaan rabnaa inaad noo sii dayso imtixaanka carruurta waa bishii gebagabada qaar baa kaalmaha gala qaar baa kalaha qaar baa guda qaar baan seexan habeenkii qaar baan quraacan kuwaaba hadda xanaaqayoo nagaba tahriibay oo aanaan meelan ku ognahay aana jirin annagu waxaan nahay hooyooyinka ardada maanta sanadka la yidhi dugsiga waa ka hadhaysaan oo imtixaanaadka ma gelaysaan annaga oo arday maxay tahay ku soo halgamaynay bishii sagaalaad haddiina la odhan lahaa maxay haytoy imtixaanka ardadu way ka hadhaysaa dee waanu tashan lahayn laakiin fiinalkii u dambeysay baa la yidhi ardadii waa ka hadhaysan imtixaankii namana qabato maxay tahay waxaanu ku soo korinay dayac badan haddaanu caano gadi jirnay haddaanu yaanyo gadi jirnay haddaanu hilib gadi jirnay iyaguun baanu fiiga kaga bixin jirnay dawladiina nagama taageerayn hadday maantana dhaheen maxay haytoy imtixaanka ardadiinu geli mayso fadhiisan mayso dee ardaygii catul dariiq buu noqonayaa annaguna ma xadidi karno way tahriibayaan hadday tahriibaanna maba heli karno annagu qarashkii hadhow aanu meel kaga saari lahayn dee waxaanu dalkooda ayaanu ku celcelinaynay haddii aad dalkoodii aad tidhaahdeen imtixaan ma gelaysaan dee nama qabtaan haddaa xildhibaanatiin haddaa agaasimayaaltiin haddaa madaxweynaha puntland cabdulaahi siciid danay uu yahay maxay tahay nama qabto in lala dhaho waxaanu madaxweyne kaa codsanaynaa inaa ardada ay noo sii dayso wasaaraddu oo ay imtixaanka noo galaan oo bal wixii ka dambeeya aad idinku kormeerataan laakiin maanta idinku kormeerkii aydaan gelin inaa ardaydii bishii u dambeysay oo imtixaankii oo dhikaadhkii laga galo lacagtii nalaka qaaday oo wax walba nalaka qaaday inaa maxay tahay tidhaahdaan imtixaankii geli maysaan dee nama qabato dee ilmihiina caatur dariiq oo noloshiibu ka dhacaya annagiina maxay hatay dhismaaral baanu noqonaynaa marka waxaanu idinka codsanaynaa inaad sanadka noo sii daysaan hadhow wasaaraddiinu idinku ardaydiina kale baacbacsada oo maxay hatay kormeer samaysta laakiin sanadka xildhibaanada waxaanu ka codsanaynaa inay ardada hoos u eegaan bulshada rayidka ardada xildhibaanada u fadhiya wadanka dalka bulshada u fadhiya inay maxay haytoy noo sii daayaan ardada imtixaanka hoos noo eegaan oo dhikaadhada ardada naloo sii daayo waxaanu nahay waalidiintii ardadan la yidhi imtixaanka ma gelayaan iyadoo bishii shanaad xataa nalaga qaaday fiigii waxa weeye nama qabato annaga waxaan ku soo korinay ilaahay baa garanaya ardada mustaqbalkooda mugdi la geliyo maaha in nala hoos naloo eegaanu rabnaa waxa weeye xildhibaanadan la hadlaynaa shacabka waxaan la hadlaynaa wasaaradda waxaan la hadlaynaa madaxweynaha waxaan idinka codsanaynaa ardada in imtixaanka naloogu sii daayo mudane madaxweyne adigu macallin baad ahaan jirtay waxbarashada wax weyn baad kala socotaa awlaadan waxa weeye waa nimanka 20 jirada dee haddii mustaqbalkooda mugdi la geliyo wax walbaa ka suurtooba waa naga tahriibayaanin noloshay ka dhacayaanin dismooral bay noqonayaan annagana dee waxay nagu tahay albacaad laga lisay intii maxaan kuu sheegi karaa aanu ku soo dhimanayna marka waxaan idinka codsanaynaa in ardada naloogu sii daayo imtixaanka kuwa kaalima gala kuwa waxa weeye kala haya aanba seexanba salaada arooya kalaha waxa weeye ardayga noocaas ah de hadii la yiraahdo imtixaan gelimayso inanka qayrkiisa ay dhinaciisa fadhiyay la yiraahdo maxaan ku sheegi karaa imtixaan bugalay adna gelimayso de waxaas waxna qabta maahan ilmaha naloogu siday bilisxaanka naloogu siday ilmaha imtixaanka intaasaan idinka codsan adeega sahan waxa uu kuu fududeeyaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka bannaan dalka adigoo kala socon kara lambarka goliska haddaba macmiil maantaba iska diiwaangeli adeega sahan garaac xidig 183 afar gees kadib dooro lambar 1 oo ah fura adeega
hambalyo macmiil waad ku guulaysatay furashada adeegga sahan.